بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب الله يا بسم الله ألا مقعي عسك الشدي اللي هي الرحمن نحريس قوده أدومدي سوى ذكارت له الرحيم مدقار أهانات وإنت إساقرهم يسار عدي وقل نحريستنا له. قال تعالى خذوه إلى وقتك السماء عركة انشقت صمد أيدي اللحظة ونذي باقدوم إيسا علامات كي الرهاد كي ليقانو لن أي الله بابئنا إياه إذا قرت السماء عركة انشقت صمد دلد اللحظة وأذنت أي صمد أدعظه لربها ربقات بي دلد اللحظة كو أدعي سايو إله باجير دلد اللحظة مركاسي أدعظي دلد اللحظة وحقت صمدي الله سبحانه رد أدعظي مرادي ربي دلد اللحظة يري iyadiina ay dildillacday waa sugan tahay rabbi inay adeecday goorta ay samadii sidaa qabsato wa idaa waktigii al-ardu dhulkii muddad la taago taagidda intan ay ka sii badato carradu ballaarato sidee u ballaaranaysa waxyaalo badanoo hadda quwadeedii qaryaha dusheeda fuula biyaha kor fadhiya arlada iyo geedaha ka baxay iyo buuraha dul fuula meelaha godkaa meelaha burcooyinka inaha haddii intii laga qaado la dhiso waa kala baxaysa kolkaa waxa weeye wixii gudaheeda fuulay dadkii degnaa iyo wixii dhisnaa ama wixii dabeeciba iska ahaa oo rabbi ku abuuro geedaha iyo buuraha iyo kuwa ama wixii basharka ka dhisay gurihii aqaliya degmaaha wixii oo dhan baa la xaaqayaa kolkaasay ballaaranaysa waxaad arkaysaa markasta goorta qudrada ee banala tusaayo amuu alla dhaaranayo waa u badan yihiin samada iyo dhulka iyo xidigaha in lagu dhaarto dhulku hooyuu xisaaban yahay meesha dusheeda lagu nool yahay wey cirka waa meesha risqiga ka yimaado aabuu xisaaban yahay kolkaa iyagoo laba yaab la ah ama kana uu yahay dunida salkeedii wey aasaaskeedii waa dhulka dadmadeediina waa cirka haddana xagga dhaqaalaha marka laga hadlaayaa dhulku hooyo kuu xisaaban yahay ku dumaya ama dhimo ama noolow cirkuna aabbuu kuu xisaaban yahay kolkaa labadii aabbiyi hooye idiinahay eed kana ku fadhideen kaana idinku dadna kaa cuntada ka baxaysay dhulka cirkana ay ka imanaysay wixii baa la riiqaya kolka adduunye ka sabar wey waidaa waktigii al-ardu dhulkii muddad la taago oo alqad carrada ay rido maa fiihaa gudaheeda wixii ku jiray ama maydkii lagu aasay ama wixii rabbi ku abuuray ee kanzi iyo dhaaman iyo dahab iyo wax ahaa waxaasoo dhan bay dibadda u soo ridaysa oy watakhallad ka eber ka noqoto wax gudaheeda ku jira uusan jirin oo wa-adinad iyada arladaana ay adeecdo oo lirabbihaa rabbigeed bay ku adeecaysaa rididdaa waxa gudaheeda ku jira ay dibadda usoo tuurayso oo waxuqad loo sugo inay rabbigeed adeecday ayaa laqiya al-insaanu dadka wuxuu la kulmayaa maa laa yuxiidu alkhiyaal caqli iyo suurad waxayan koobi karin min ashadaa'idi walahwaal dhibaatooyin iyo mashaqaan la xamili karin oo qiyaamadii ah intaa waa suurgadoonka intaa markay dhacda duni dhammaatay aakhiraa la tegay markaasaa arrimo yaab leh iyo xisaabtamid iyo is-abaalmarin iyo hoygii dambe ayaa lala kulmaya idaa waktigii asamaa cirkii inshaqad samadu dildillaacdo wa adinad samadu ay adeecdo oo lirabbihaa rabbigeed ay ku adeecdo dildillaacaas oo waxuqad samada loo sugo inay rabbigeed adeecday waidaa waktigii al-ardu dhulkii muddad la taago oo la fidiyo oy wa alqad rido maa fiiha gudaheeda wixii ku sugnaa oo watakhallad ay ka marato eber ka noqoto gudaheeda wax ku jiraa uusan jirin oo wa-adinad ay iyaduna adeecdo arlada lirabbihaa rabbigeed bay ku adeecaysaa ka eber noqoshada ay ka maranayso wixii gudaheeda ku jiray dibadda usoo ridayso rabbigeed bay ku adeecaysaa oo waxuqad loo sugan rabbi inay adeecdayba laqiya al-insaanu qofka wuxuu la kulmayaa dhibaatooyin yaablow yaa ayuha alinsaanu dadow innaka adiga dadka kaadixun baa tahay mid dhibtoonayo ilaa rabbika rabbigaa inta la kulankiisiya geeri laga gaaro baad dhibtoon kadxan dhibtoosho fa mulaaqiihi mulaaqi lkadxi dhibkiina waad la kulmaysaa waxa weeye adduunyada intaad ku nooshahay waad dhibtoonaysaa waxaadna ku dhibtoonaysaa danahaaga iyo saad howlahaaga u qabsan lahayd iyo wixii shaqee camale aada qabanayso haddana camalkaa laba unbuu u kala gurmaya camal wanaagsan inuu yahay oo laga abaalmariyo
iyo camal xun inuu yahay oo lagugu cadaabo kolka intaad nooshahayna waad dhibtoon goortaad dhimatay alla la kulantaana camalkii aad ku dhibtoonaysay ayaad abaalgudkiisii la kulmaysaa in khayran fa khayr wa in sharan fa shar laa tadlimuuna walaa tudlamuun baa laydinku qaadayaa kolkaa wixii camalkaaga uu guday ayaad alla agtii kala kulmaysa yaa ayuhal insaanu dadow innaka adiga dadka kaaduxun mid dhibtoona ayaa tahay oo adduunyada iyo camal iyo waxaasaad ku dhibtoonaysaayo waa tacawiya maalin la ordaayo waxaa dhibkaa soconaya ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika rabbigaa la kulankii inta laga gaaro ka dhimato wey liqaha rabbi ee lagu sheegayo waa geerida kolka haddii la geeriyoodo hawshii waa kaa dhamaatay kadxan dhibtoosho aad ku dhibtoonaysa adduunyada iyo hawsheeda haddana fa mulaaqiihi mulaaqi lkadxi dhibkii aad ku dhibtoonaysay eed shaqaynaysay natiijadiisii iyo abaalgudkiisii mid la kulmi doonaad sida loola kulmaayo arag laba unbuu camalkii noqday kolka fa amaa man ruux uutiya la siiyey kitaabahu buugga camalkiisii lagu qoray ilaan wixii camal ahaayee la sameeyey o dhan baa la qoray kadxigii dhibkii baa la qoray kolka hadduu wanaagsana biyamiinihi xagga midiga ruuxa laga siiyo fa sawfa dib damba yuxaasabu la xisaabi doonaa xisaaban xisaabid yasiiran sahlano wayanqalibu waa u laaban doonaa ilaa ahlihi xaaskiisii jannada u joogay buu u laaban doonaa masruuran isagoo mid la farax geliyey oo reeraynaya waxa weeye kadxigii laba unbuu mid noqonaya camalkii camalsan hadduu yahay waa ka hadda aynu ka sheekaynay hadduu camal xun yahayna waa imaan doona xadiid baa sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam muslim iyo bukhaari wariyeen xadiidkaasaa macnihiisa wuxuu ku caddaynayaa xisaaba yasiira waxaa xisaaba haddii la sheego waa la naxaya laakiin meeshatan inuu ninkan ahlu yamiin yahay oo kitaabkiisii midigta laga siiyey oo wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran haddana la xisaabay baa xooga rasuulkuna xadiid buu ku yidhi man xuusiba cudiba qofka haddii mar la xisaabo waa cadaaban yahay caaishaa rasuulka maqlaysay calayhi salaatu wasalaam kolkaasay rasuulka eraygii ku qabsatoy tidhi awalaysa allaahu caza wajalla yaquul fa sawfa yuxaasabu xisaaba yasiira qofkaan la cadaabin lana xisaabay baaba eebba sheegaya man xusiba cudiba maxaad u tidhi qofkii la xisaabo waa la cadaabaa ilaahna uu leeyahay inta xisaab yasiira la xisaabo ayuu wayanqalibu ilaa ahlihi masruura isagoo xaaskiisii u tegaya faraxsan markaasaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa daalika alcardu buu yidhi kaad sheegaysaa xisaab ma ahe magacan baa xisaab laga dhigay waa bandhig bandhigu waa side waxa weeye xadiid kale iyadana sheegay yudni rabbu cabdahu ilaah baa addoonkiisa soo dhoweynaya wayadacu calayhi kanafahu kolkaasuu ka qarinaya addoommada intooda kale oo ilaah baa wax ku dadaaya markaasuu leehay ya cabdi anta facalta kada anta facalta kada wa facalta kada waa ilaah iyo isaga keliya cid kale ma arkaysa waa asturan yahay kolkaasuu nacam yaa rabbi leeyahay wixii oo dhan uu sameeyey marka loo qiro loo bandhigo isna uu qirto yaa rabbi leeyahay ana satartuka calaa haada fi dunya wa ana akfiruhaa laka alyawm awalna adduunyada cidi kuma ogay anaa ku ogaa oo kula socday waana ku qarinayey maantana waa ku dhaafaya kolka waa cardiga xisaaba yasiirata wixiisa inta loo bandhigo si gaar ummadda laga qariyo aan lagu canaananin oon lagu dhaliilin oon lagu fashaxaarin oon lagu ceedayn fagaaraha hoos loo tuso wey kolkaa xisaaba yasiiranta macnaheedii labadaa xadiid ayaa inoo sheegay kolkaasuu rasuulka yidhi walaakin man nuuqisha halag qofka la qudaadaro qoorta loo galo war maxaad u yeeshay goormaad yeeshay meeshaa ma ku yeeshay la yidhaa kaasi waa la doondoonayay kolka kadxigii labadu u qaybsamay qaybtii horaa taa fa amaa man ruux uutiya kitaabahu buuggii camalkiisa ku qornaa la siiyey biyamiinihi gacantiisa midige fa sawfa dib damba yuxaasabu la xisaabi doonaa xisaaban xisaab yasiiran fududo wayanqalibu waa uu laaban doonaayo ilaa ahlihi ahalkiisiibuu u laaban doonaa ahalkan la sheegay waa kuwii jannada u joogay ee loo darbee loogu talagalay masruuran isagoo farax dhuuntaa laga geeyo oo buuxaw hadduu dhankii kale camalkii noqdo waa kana wa amaa man ruux uutiya la siiyey kitaabahu buugga camalkiisa ku qorna waraa'a dahrihi dhabarka laga siiyey kitaab siintan meelo badan bay nagu soo martay laakiin labada gacmood un baa la sheegi jirayo yamiin iyo shimaal baa la sheegi jiray waraa'a dahrihi waa nooc cusubta kolkaa ma in saddex meel la iska siinaya qaar midig laga siinaayo qaarna bidix laga siinaayo qaarna dhabarka laga siinaayo ma ahane waraa'a dahrihi iyo bishimaalihi baa isku mid oo waxa wey warkii dhibaatadii baa sii badatay qofka kan caasiga ah wax dhaqaan laga raba maaha wax la dhaqaayo
oo la dhaqaalaynayo dadamo laga qabaa ma aha halkaa feeraha inta laga duleeliyo oo gacantiisa bidixe meeshaa lee geliya ciqaaban calayhi yaa dhabarka gacantiisii laga jiidaya gacantiisii oo dhabarkaa laga bixiyo cukurkeeda xaggaa looga dhiibaya kolka waraa dahrihiina waa tahay bishimaalihina waa tahay meeshiina waxaa weeye dhiibiddaa loo dhiibayaaba nafteedii lagu sii ciqaabaya dhiibidda nafteedii baa ciqaaba meeshaa feeraha laga bujinaya halkaa inta laga duleeliyo oo gacantiisa laga geliyo oo dhabarkiisa laga bixiyo yaa xagga looga dhiibaya kolka waraa dahrihi iyo bishimaalihi laysku daray nas'alu llaha salaam wa amaa man ruux uutiya kitaabahu la siiyey waraa dahrihi dhabarkiisa kadib laga siiyey fa sawfa dib dambe goorta waxa ay ku dhacaanba yadcuu wuxuu u yeeri doonaa tubuuran hoog wax kaloo la gudboon intuu waayo oos af labadii dhawaaqo yuu hoogayay ba-ayay oran doonaa fa sawfa dib dambu yadcuu isaga u yeeri doonaa tubuuran hoog wayaslaa wuxuu geli doonaa saciiran naar huraysa dhibaatadaa ku dhacday sababkii keenay baa lagu sheegayaa markaasay dhibaatadu ku sahlanaanaysa dhibaatadaasaa qofkaa la marinayaa marka lagu yidhaah waad maxaysaa insaan baa tahay laakiin bad arag gafafku galay kow innahu isaga kan kitaabka biixda laga siiyey dhabarka looga dhiibay kaana wuxuu ahaan jiray fii ahlihi reerkoodiiyo adduunkiisa markuu joogay masruuran mid farxuu ahaan jiray kolkaa faraxa adigoo reerkaaga jooga aada farxaysid dadka baariyaalkaa waataynu soo marray waa cabsoodaan baa la yidhi wayakhaafuuna yawman kaana sharuhu mustatiiran innaa kunnaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin baan soo marray adduunyada markay joogeen ba wadnaha baqdin haysay allay ka baqaayeen maxaa la mudan bay oran jireen aakhiraa hortooda taallay kolkaa waxa weeye adduunyada intaad ku nooshahay tilmaanta lagaa doonayaa baqdin wey kolka haddaad aragtid qof boodboodaya oo bayraqaaya ama garaad buusan lahayn oo waa maalaa yacqilo waa ilmo yaroon qaangaarin ama waa lunsan yahay wa ilaa adoy aakhiro kaa dambayso oon masiirkaaga ogeyn oo asxaabuulyamiin iyo asxaabu shimaal janno iyo naar tawxiid inaad ku dhiman adoon waxaaga ogeyn boodbood iyo bayraq kuuma eka kolka waxa wey bayraqid la bayraqo siiba haddana calaa baatil kolka wax baatil iyo xaqdarro ah lagu sii farxayo arag innahu isaga kaana wuxuu gafkii koowaad baa laga dhigay walow gafaf ka waaweyn la keeni doono innahu isaga kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ahalka waa reerkiisii adduunka uu joogay gudahooda wuxuu ku ahaa masruuran mid la farxiyo wey mid khaaliyu dihni ah oon qiyaamo iyo xisaab iyo janniya naar midna maskaxda ku hayn waa iska qosloo boodboodu ahaa gafka labaadees galay waxa weeye innahu isaga danna wuxuu malaynaayey alla yaxuura alla inuusan u laabanayn oo aakhiradan kuma tala gashanayn oo mulxid buu ahaa munkirulbacsi ah oo aakhirada firsan allaa dib ugu tegaysaa oo kula xisaabtamaya taana maskaxda kuma hayn waana miduu la qosqoslaayey wey waa miduu la qoslaayey innahu isaga danna wuxuu malaynaayey alla yaxuura inuusan eebba u laabanayn kolkaa dafiridda aakhira uu dafiray iyo kibirka adduunyaduu ku kibirsanaa oo naxdin ayn calooshiisa ku jirin sii weeye midda dhibaatada loo mariyo kolkaasaa rabbi yidhi subxaanah bala inaan alla loo laabaynin daa hadalkeed ee ina rabbahu rabbigii wuxuu ahaaday kaana rabbi wuxuu ahaaday bihi isaga basiiran alla u arkid badan wey goortuu niyadaa qabay ama afka kaga hadlaayey ilaah inuusan u laabanayn waa la ogaa waana la arkaayey goortuu baadilka ku farxaayey ee qoslaayeyna waa la arkaayey kolka arrimihii lagu arkaayey lagu ogaa ayuunbaa lagula xisaabtamay bala inaan rabbi loo laabaynin da ee ina rabbahu rabbigiis kaana rabbi wuxuu ahaaday bihi isaga basiiran alla arkaayo wey falaa uqsimu bishafaq falaa uqsimu baa rabbi yidhi subxaanah waa aan dhaaranaya bishafaqi cawaweertaan ku dhaaranaya shafaqu waxa wey qoraxda markay dhacdo meesha ay ka dhacday gudguduudka ka muuqanayo wey gudguduudkaa ka muuqanayo wey oo waxa wey waxoogaa maalinnimadii kasii dambaysa iyo madowgii habeenka ayaa isaga daba tegaya oo halkaa waa xuduud soodin bay noqonaysaa kolkaa midab aan labadii midna ahayn kii habeenkiina raacsanayn kii maalin raacsanayn cawaweer baa la yidhaah isku dardara ayaa meeshaa ka dhasha kolka kii baa rabbi ku dhaaranaya in lagu dhaartuu munaasib yahay maxaa yeelay waa qudra yaable waataynu nidhi waxyaalaha rabbi uu ku dhaaranayo ee makhluuqaadka kamida qiimo gaaray leeyihiin ama xagga samayntooda iyo qudradooda ama xagga nafciga iyo dheefta ay basharka uleeyihiin ama dhibaatada u yeelan karaan haddii la ururiyo arrimahaasaa ka muuqanaya kolka shafaqu waxyaaba wey oo ilaah inuu samayn karo cid kale xataa suu ku noqday aan la ogeyn
فلا أقسم ودارنا يا بالشفق عوارتان كدارنا يا والليل هذينك بان كدارنا يا وما وسق وهذينك جدي سقلا ومخلوقات يودن وهو يا مالنتي واتلك لفافو قفنا البوكعة لكن هذينك قبل أركابه يجي سيبو سوقلايا كان دد يدويه وكذا حيس دد يدويه كذا حيسا ومثل أركاب قبكيسي هي حرمتيسي يمشوا عودي بري جري أيو إيمانا يا سبب هذينك هو قرعة مركي دعوة قبل قابته أي شنبلو حرونا يا حتى ما لا يعقلك كلك هذينك ويوح وحضمها يا أرورنا يا مالنكينا انت الله فرحا قفل ملكة الأبطناي مخلوقات كلهم بين عام كوتاي كومات كوبنا بني آدم ككلي والليل هذينك بان كدارنا يا وما وسق وهذينك أروريي جودي سجلي مخلوقات والقمر ضيحان كدارنا يا إذا تساق مركا ضيح استنكيسو كامل نقضه وسد حذين سدحية بنك أفرية بنك سنية بنك إلى اللحية بنك انت مركو لا فواسي قابية انت كور ريسان ووسا كامل نقض كل كهذين ذا وضيح كامل نقضه استنكيسو على يهيو ومدع قمره ليلة هلال إيا قمر إيا بدري بالك ليلة صدح ذهبين أهر ريسا هو هلال ومركا ينو بالله إنك كلكم صدح دافا واير وينانا يايو قمر ضيح بالنقونا يا هبين ذا وكامل كيايس بدري بالليلة هو كامل نقضي والقمر ضيح بان كل أرتا إذا تساق افتنكيس مركوب بحجنه وإسوسه بحقيدي إلا تركبون وحال إذن لكل من آيا طبقا هول عن طبق هول كله دبوا إذين ديبا يهو لتركبون وحد لكل ميسان انت الدنيا أجوكتان ما هذا آخرة تكتان طبقا هول عن طبق كل طبقا عن طبق دبوي وهول هي مشاقة بشركة ولا كل ما يهو لكن يمد أدون تأيني مد آخرتها إلا بدأ رأيي ومفسرين تلاقيهن قالوا وحيلاقيهن هوسة لقول دارتي واد لكل ميسان واتي أدونك وحوي إنسانكو على وشا مركا وكل دبعه ونفت اللقاليو أفر بلوت كبعدي مركا هوسو لكل ما يوحوي انتو دعاني حنجيه ليقها وحماها لكن قورت النفل اللقاليي ما هذا رقرتها وحروا البني آدم كجيرة قف بني آدم وسعونا يوردا يوفريسانا هدي علوشي سكونا لو لغيرا وحول تاسي تا مركو انتو مألوف برتو ميل عادي يقول نقوتو او سقف إنان لها بو ديباد إيمانا ديباد قورتو إيمانا يا وضادو صومرا يهوش هذا مقرنيس ميل يابلو صومرا انتا سوكرا لولانا يا وحول لباد بناك مركو يمادا وحو إيمانا يا وحو سنقو عوال بكو جيري حدنا ديباد بو يمد قرح إيا قبو إيا ضبائل يا وحو سنقانين واكد كذوضانا مركو تاكا بحا هدانا لأفتي أدونك أول لعاني يحبو عروشكم مدموتان جيري إله ما ماشو وحكسين جيري يقان أما حضونتي وحوقات دروري جيرين أما أفكا لعان بو مدموتان جيري كل كاسا عنتو سنو عادلهين أفكا لو صارايا وحسا لقب قبطسينا يا اللغوترا يا وحول كلو انت مركو دافو وستاقاتانا الكأي مشاقا كسو بحيا وحول كلو تلابتين لكو في كفاين نقونيس كوس مركو نقضم معالن انت اللو جايو لإذا وحبر المهاسو لها قرجومو لأري أما حوال الله ديرين نقونيس إساقو مركو وحقور سلا مسؤولية فوشي ilma kolkuu dhala ka daran dabaqan can dabaqi waato markii la nool yahay kolka waxay soconaysaa arrinta ilaa aad qalaf ka tiraahid qolada aakhira ku fasirtayna ka bilow qabriga nafta marka ay ka baxda qabrigaa la geynaya kolka qabrigaa cayirigaa qofkii la geeyey ee ka qodaaya hadduu saacada ku jira uusan qaban karin naftiin in lagu soo celinayo la sheegay waa dabaqan hawl wey su-aasha markay labada malag ugu timaado wax lagu weydiinayo waa hawl kale markuu intuu ka baxo qiyaamo taga waa hawl kale marka la xisaabo waa hawl kale ilaa uu ka gaaro heerkii ugu dambeeyey oo janniya naar mid ah latarkabunna tabaqan can dabaq latarkabunna waxaad la kulmaysaan oo fuulaysaan dabaqan hawl can dabaqin bacda dabaqin ama mid kalead kasii fuulaysaano dhibaataba midun bay kuusii dhiibaysa kolka inta aada nooshahay adigay dhibaataa walaalaha famaa lahum war maxaagu waxaan kuwan caasiyaalka si walba wax loogu sheegayo laa yu'minuun ayan eebihii abuurtay la rumaynayn oo waidaa quri'a haddii la akriyo calayhim dushooda alqur'aanu lagu akriyo ayan laa yasjuduuna la sujuuday qur-aanka kan cadamadiisiiyo qiimigaa leh waxay ula sujuudi laayihiin ama eebihii abuurtay ay u rumayn laayihiin waa maxay waa su-aal yaab leh famaa lahum maxaa gaalada ugu wacano laa yu'minuun allihii abuurtay ee adiladaa tusay ayan u rumaynaynin oo waidaa quri'a haddii la akriyo calayhim dushooda alqur'aanu lagu akriyo ayan laa yasjuduuna u sujuudaynin bal sujuudiya eebba rumaynta
الذين وحا كفروا قالوا بي يكذبون القرآن كي به ما رميان لها غيب بيننا أيان ما يسجدان أمر رميان وابد فرسنه قرآن كي بيد فرسنهين ربنا وايد فرسنهين ما بجري إليهين ما حي رميان كل هذا انت قرطان إيمان كون اعترافان أصين رميان وهو قال سمين يوحى كلا ضرن سيدا هذا رجاله إنه يبكى كفريانه بينيين بل إسكدا رمين أي الله رميان سجود أي قرآن وسجودان هذا الكيدا الذين وحى كفروا قالوا بي يكذبون قرآن كي بينين أيان لكن ما حد كفري والله أعلم بما يوعون والله معبود حقا أعلم الله أقوم بنوي بما يوعون وحق ففي أرورين أيان قف كان أرورين أيان أي ويلين أيان وحا اعتقاد حمي أدبلان أوركا كوهيان ضميرك يا مسكحة دي حبتك أما بوقوضة أما عمل كي سمين أيان وحا الله وحي سميان أي ويليين ألا أقام بدن يهي وأنا أكل حساب تمي دونه والله معبودك حقا أعلم الله أقوم بدنوي بماذا الله أقوم بدن يهي يوعون يجمعون أي كل ميان أي ويليين في صدورهم وفي صحائف أعمالهم ورقدها عمل كودا اللي قري يلاب تودا وحا أي نيحما قبان عقيدة حمو أما عمل كحون يسميان أي أروريان إيقو يبوى أقيهي فبشرهم وحدهم بشاريسا بعذاب النار عليم حنوج سوي نار تسوي سوي إلا الذين آمنوا استثنيهم منقطعة هو بمعنى لكن إلا كوا صائر توضح النقطة الذين أخيارته آمنوا حق الرميسي إلا أخيارته إلا ساهر نقطه الذين أخيارته آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال ونكسل وإيمان يعمل صوبا اسكو درستي لهم إيقوا وحيليهين فبشر بعذاب أليم وركد ميال لهم وحيليهين أجر أبالقد غير ممنون مثل قوية غير كيسة وجنة يصوابك اللسينايو لا مقطوعة ولا ممنوعة أي نكسو مرني إذا وقع قلت وحوي أبالقد أن دماني هي النعمة جوكتا هي برواقة جوكتا إيقوا ليهو